Asalaamu calaykum. In badan ayaan kala maqnayn, taasna waan idinka raalinay. Waxaan leeyahay garaali noqda. Maanta intaan sheekadana bilaabin, waxyaalaha aad nagu caawin karteen nagu caawi. Sida noo caawisan ayaa halkaan ku joognaa. Hadda waxaan soo gaarnay insha Allah 10 waa idinka rajeynayaa. Waa maasantii. Sheekadana maanta waxay ka bilaabmaysaa laba gabdhood oo la noolaa ayadood. Mid waxay ahayd mid madow, mid kalena waxay ahayd mid cad. Mid cad aad ayay u necbeed mid madow, waxaana labadooda hayn jiray ayadood. Ayadood waxay aad iyo aad u xiisayn jiray gabadha cad, wax kastana way u samayn jiray oo ay doonto. Ayadana waxay ahayd mid leedahay gabadha madow. Maalin ayaa ku tireen ayay gabadha waxaan ahay gabadhaadii oo kale maxaa saad igu galaysaa. Ayada ayaa tiri naawade aan wax islaba dhaho wax ku dir qabo hadii kale waxa la kulmaysaa qaab adag. Ayadii ayaa tiri waxa ismoogaysaa gabadhan aad ka quruxda badan, dadka quruxda meel baa lagtaa ay gabadhan quruxda badan ismoodine soco shaqadaada qabso. Gabadhii cadeed ayaa ayadeed ku tiri ay wax u raacaysaa inays anigu gaareen quruxaysan igu gaareen. Ayada ayaa tiri waa runta ay aad barta ii seexo iska jiifso iska baashaalo iska ciyaaro iska seexo. Gabadhan ayaa wax kasta ku keenaysay. Gabadhii way xanaaqday oo way tagtay. Maalinta dambe ayaa iskuulka macallimadii waxay ku tiri waxa la qabanayaa tartan, qof kasta waxa looga baahan yahay toobkaasoo qurux badan. Labada gabdhood ayaa soo raacay oo imaaday xaafadoodii. Gabadhii madoobeed ayaa ku tiri ayadeen ayeeyo waxa iskuulkan looga soo yeeray waxa la rabaa toobkaas in la soo gado. Ayadii ayaa tiri cuntada ayaa weynay ana toob baad ka sheekeynaysaa miyaa. Waxayna tiri ani ima weydiin kartin toob iyo arrimahaas naga dhaqaajagteen naga dhaqdhaqa. Gabadha cad ayaa tiri ayeeyo waxaan laga rabaa toobkaas oo tartan lagu qabanayo dhansi ah. Ayadii ayaa tiri ani ayaan ku siinayaa alla gabadheedii maamo ii sheegtin. Gabadhii madoobeed ayaa tiri alla ayeeyo soo hadeer aad ii diidaysa toobkii maxaad gabadhan u gadaysaa. Ayadii ayaa bahal dharbaaxa oo kulul ku dhijisay gabadhii madoobeed oo ku tiri mafalxumadaas ayaa kugu gadaa toob. Mideeda kale maxaa dariskaaga ka khasaarinayaa dadka madooba daris ku soo baxaya. Sidaasna ayay ku soo fasaxday labadii gabdhood. Midna waxay u soo libisay midna ayadoo qaawan ayay soo tirtay. يعني iyadoo bilaatooba ay xafladii imaaday. Dadkii dhan ayaa ku wada qasqaslay gaar ahaan walaasheen si xun ayay ugu qasashay waxayna u gelisay baal dharbaaxa oo kulul oo ku tiri naayahe dhaqanka ayaa ka xumaaday. Ayadana ayaa ka xumaysay iga aamus haddana way ka aarsatay oo ku tiri ma anaad dharbaaxa ugu dhufanaysaa haddaanan ay ku sheegin. Markii dambe ayaa xafladii soo dhamaatay oo la imaaday xaafadii waxaana soo horeysay gabadhii cadeed oo ooyeysay oo ku tiri ayadeen ayeeyo gabadha maanta dhan ay dilaysay dadkii iskuulka ay ugu baadishay ee gabadhan ka xisaabi. Waxayna u sii raacisay toobkii ayay iga xumaatay. Ayadii oo aan waxba hubsan ayaa baal dharbaaxa ku dhijisay oo ku tiri maxaa saad u samaysay oo oga inaad ka maseeraysid. Markii gabadha ayaa tiri ani kama maseerin ayada ayaa ardayda dhexdeeda igu ceebaysay. Gabadhii madoobeed ayaa ku tiri aniga waxaan u caasay seed aadadtu u barato. Ayadii ayaa tiri waa beenta waa xaasidaysay. Gabadhii yarada ayaa tiri ay maanta dhan ay iga maseeraysay oo dharbaaxa igu dhufanaysay. Ayadii ayaa tiri hadda maanta laga bilaabo gurigeyga mar dambe kuma arki karo soo albaabkayga bax. Gabadhii oo albaabka ka baxday ayaa fadhiisay kursi waxayna maqashay wax u yeeray. Waxa meel uga soo baxay naag waxayna ku tiri waxaan arkaynay inaad guri galaysid inaad tahay dabaaciyad iyo in kale waxaana noo cadaatay inaad tahay gabadh maskiin. Ugu dambeyntii waxay siisay guri iyo maal aad iyo aad u tiro badan waxayna ku noqotay farxadeedii awalkeedii hore waxayna noqotay gabar faraxsan. Muddo kadib waxaa aragtay ayadeen waxayna albaabka u gargaraacday gabadheedii oo ku tiri gabadheedii ma joogtaa qolkan. Gabadhii ayaa u soo baxday ayadeen waxayna ku tiri maxaa ku qabtaa ayeeyo soo fadhiisa ayay ku tiri waxayna siisay waxay cunto iyo waxay cabtaba.
Ayadii ayaa istaagtay oo ku tiri ayeeyo waa mahadsan iminkana waan sii soconayaa waxaan ku rajeynayaa nolol aad u wanaagsan. Gabadhii aa ku dulminayay baryahan oo dhan ma ogtahay waxay igu samaysay? Gurigii ayay igala wareegtay oo waxay u saxiixday asxaabteedii oo dhan. Markii dambena waxay baratay asxaabo xunxun. Gurigeygana kuwaas ayaa iga qaatay oo ay u saxiixday. Dib dambena iimaysan soo eegin. Ayadii ayaa tiri haddana waan sii soconayaa oo waxaan raadsanayaa meel kale oo aan galo hooyay waana mahadsantahay. Gabadhii yareed ayaa tiri maya meel kale ha raadsan oo ha dadayin ani waa ila joogi kartaa. Ayadii way oyday oo waxay xasuusatay waxay ku samayn jirtay gabadhiina iyo ayadii waxay noqdeen kuwo aad iyo aad isku faraxsan. Asxaabta sharafta leh sheekadan intaas ayay kusoo gabagabowday oo ay kusoo dhamaatay. Sheekadan waxaan ka faa'iideysanaynaa in aan kala jeclaanin carruurteena maadaama aan anagu dhalnay oo aan loo eegay midabkooda iyo soo eegayeen oo loo eegaa mustaqbalkooda iyo akhlaaqdooda. Fadlan like saar muuqaalka, subscribe channelka, share si dad badan u gaaro. Waad mahadsantihiin. Bye bye.